halkan aan hadda joogaa waxa weeye hoyga ay magaalada Hargeysa ku leedahay xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka ee wadani Faaduma Saciid Ibraahim telefishinka sahan adaa u yeeray maxaa soo kordhay horta wad arkaysaan wadanku xaaladu maanta taagan yahay bariga Sanaag waxa ka soo kordhay waad aragtay ceelaf weyn oo imaka laba sanadoodba aynu xaaladeedii ku jirnay oo laba reer oo walaala aynu kala saari kari weynay jabhada aanan weligeena aynu yeelan 30 sanadood ay Somaliland jirtay oo maxaa ahayd ka dilaacay arrimihii dabadooda arkaysid maanta wax ka sii dhaca mooyee wax soo kordha aanay jirin wadanku maanta runtii wuxuu u baahan yahay in macaarid iyo maxaafid iyo guurti iyo baarlamaan iyo cid walba iyo waxgaradkiisa intay gacmaha isqabsadaan aynu maxaa haydnaano war intan gudaheena ishaysadkeed iyo waxeeda inaga daaya bal maxaa hayd wadankii ba u baahan gurmada saamin ugu gurmana markaan eegay waxaan arkay macaarid adagna ma hayno maxaafid adag oo maxaa hayd strategic plan hagaagsan inoo hayana ma hayno marka wadankii wuxuu noqday maxaa hayd wadan aanaynu dhinacaynu u dhaqaajisiino oo la mooday inuu noqday maxaa hayd gaari banjaray waxaan idhi Faaduma adna ma siyaasadda jaha wareertay baad maxaa hayd ku milantaa oo iskaga jirtaa adigoona waxaad qaban karaysaa aanay jirin marka damiirkaygu wuu ogolaan waayay inaan jahwareerkaas aan iskaga milmo xisbiban ku jira iyo shaqan hayaa aan maxaa hayd naftayda ku maaweeliyo marka waxaan maanta aan maxaa hayd aan go'aansaday inaan xilkii aan hayay aan u hayay wadani aan iska casilo xisbiga wadani guud ahaan aan iska casilo maxaad noo raacin kartaa dheeraada aan ahayn in xaaladaha wadanka aad isku casilayso runtii isbedel waan arki waayay hanaqaadkii aan rabayna waan arki waayay himiladii aan himbirsanayna waan waayay marka dabeetana sidaan sheegay waxay noqotay miyaan iskaga jirnaayo siyaasadda miyaan iskaga jiraayo miyaan ku milmaan si dadka kaleba ugu milmaan mise maxaa hayd siyaasadda waad ka banaan baxdaa marka runtii markaan si walba dhinac walba markaan u eegay markaan taageerayaashaydii maxaa hayd dabadii gudaba aan la tashaday xaaladan maanta sidee ay ku jirto malaha waxaa ka fiican anoo siyaasi madax banaan noqda Faaduma Saciid Ibraahim arintaas casilaadaada dadka qaar ayaa la xiriirin kara in gudoomiyaha khilaaf soo kala dhaxgalay amaba hoggaanka sare ee xisbiga arinta maxaad ka leedahay ما عبد الرحمن horta waa qof wanaagsan waa qof xiriir dheer maxaa hayd naga dhaxeeyay maxaa hayd isaga iyo qoyskiisana waxa weeyaan dad aad iyo aad aan ceesho milixan wada noqonay marka wax alla wax khilaaf oo dhaxdayada soo galay ma jirto dadka qaar marka ay maqlaan Faaduma Saciid ayaa maanta xilkii wadani iyo guud ahaanba xisbiga iskaga tagtay dadka qaar waxay oranayaan arintaas waxa cadaadis uga yimid malaha dadkii madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oo madaxweynahana aad isku deegaan tihiin dadka sidaa fikir u dhigi kala maxaad ka leedahay haddaad koob biyaha aad qaadid faaladeedii buu yeelanayaa maxaa biyaha loo qaaday maxaa koobka loogu shubay maxaa quraaradiisa loogu deyn waayey maxaa qasabada looga soo shubi waayey marka waxay faaladu mar kastaba way jiraysaa anigu qof faaladiisa waxba kama oran karayo laakiin anigu waxaan oran karayaa maxaa hayd anaa isku garan waayey wixii aan islahaa way ka soo baxaysaa ama halkii aan jeclaa inaan taagnaanana ma taagnin marka anaa isku garan waayo waxaad aad ugu celcelisay inaad xisbiga wadani isku garan weyday ma jirtaa wax tala oo aad maanta siinayso oo aad leedahay waxa iyo waxaas ayaan ku tagay hala sax wallahi anu mid kaliya baan oranayaa xabada kaliyaan oranayaa waxa weeyaan gudaheena maxaa hay Somaliland xisbi iyo maxaafidba waxa aynu isku haynaa waxa weeyaan shaqadan si wanaagsan uma qabanayso iyo anaa si wanaagsan u qabanaya yaanaynu marna ilaabin waxaas oo dhan ka weyn waxaas oo dhan ka weyn kursiga madaxweynaha waxa ka weyn kursiga macaaridka waxa ka weyn Somaliland qarannimada Somaliland ba wax walba ka weyn haddaynu qarannimada Somaliland aynu adkeyn kari weyno
oo aynu u guntami weyno oo aynu u shaqayn weyno oon adkayn kari weyno aynu cadow kastaba maxaa ka difaaci kari weyno wax alla wuxuu kursi taraya ma jirto. waxaa jira in dhinaca xukuumadda aad u sii socoto. anugu waxaan maanta aan u fadhiyaa waxa weeyaan inaan noqdo siyaasi madax bannaan. waxaad in badan ku celcelisay in siyaasi madax bannaan adigoo xisbi ku jira ayaad xaaladaha maanta waddanka taagan aad sheegtay inay wax ka bedeli kari weydeen. adoo siyaasi madax bannaana oo aan xisbinaba ahayn sideed wax u bedeli karta? anaa markaa fikirkayga xor u ah. markaad xisbi ku jirtid xor uma tiida waxa weeyaan waa inaad xisbiga iyo maxaa hayde siduu u shaqeynaya aad maxaa hayde aad maxaa hayde u wajahdid. laakiin markaa dee markaad tahay qof siyaasi madax bannaan markaad tahay iminka Faadimo ahaan de wixii wax ila ay maxaa hayde ila eg tahay baan ka hadli karaya. maxaa haydiin wixii aan qaban karayana waan qaban karaya. marka anigu dhalinyarada sidaan ula shaqayn jirayna waan ula shaqaynaya. wadankayga sidii aan maxaa hayd ugu shaqayn jirayna waan ugu shaqaynaya. codkaygana meel dheer iyo meel gaaban intii aan ka gaarsiin karayana waan ka gaarsiinaya. Faadimo Siciid Ibraahim, muddadii dheerayd ee aad xisbiga mucaaradka ee wadani ka tirsanayd, xukuumaddii hore iyo xukuumadda haatanba haween iyo ragba si weyn ayaad isku weerarteen oo qaarkood aad isku deegaan haydeen. maanta ma leedahay aynu isa saamaxna waqtigeedii baa la gaadhay? horta siyaasaddu maxaa hayd marmar dadku khalad bay ka fahmaan. maxaa haydin cadowtinimo iyo bay isku qaadan. laakiin siyaasaddu waxa weeyaan fikirkayga iyo fikirkaaga waa kala duwannahay. haddaan maanta bedrian kugu idhaaho shaarkaaga ma jecli oo tiraahdo laakiin anaa jecel de wax laysku dilo maaha. runtii siyaasadduna waa taa, waa aragtidayda iyo aragtidaada. markaa runtii waxa weeyaan horta haddaynu qof dad islaama nahay waxa weeyaan inaad mar kastaba markaad sii seexanaysid aad qofkii calooshaada aad ka sii daysid oo aad saamaxdid. marka anugu markayga horeba dee wax aan u qaba cidna ma jirto. inta la wada og yahay xisbiga wicid waad soo martay, xisbiga wadanina hadda adiga ka tegey. waxaa la leeyahay halka u hadhay Faadimo Siciid haddii mar kale siyaasadda ay ku soo noqoto waa xisbiga kulmiye. bal war inaad horta maxaa hayd labada xisbiyaan soo marayba. maxaa hayd cabdiraxmaan ciro wuxuu qof aad iyo aad u wanaagsan oo macaan. Faysal wuu iska qaylo badan yahay mooyaane run ahaan markaas si wanaagsan aad ula dhaqantid aad ula fadhiisatid waa qof aad u raxmad badan, waa qof faxala. siyaasadiisu siday doonaysaba ha ahaatee laakiin shakhsi ahaan waa qof aad iyo aad u wanaagsan. marka maxaa hayd runtii labadaba asxaab fara badanna waan ku leeyahay. waana laba xisbiyo oo ay marna aanan maxaa hayd xumaan ana afkayga anu ka soo mari doonin hadduu ilaahay idhaaho. maxaa hayd meel kale oo saan kuu sheegay aan imika aan u socdaana ma jirto. xisbi aan ku biirayaana ma jirto. daawadayaal, taasi waxay ahayd Faadimo Siciid Ibraahim, xogayihii arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka ee wadani, oo hadda telefishinka Sahan u sheegtay in xilka xisbigaas ay u haysay iyo guud ahaanba xisbiga wadani ay iskaga tagtay. Batri Kosaar Maxamuud, telefishinka Sahan, Hargeysa.